mid ininka inaga mida ma jiro hadduu jirana buu rasuulku leeyahay rabbigii buu qiyaamaha la kulmi doonaa addoonkii rabbigii maalinta cid u kala afcelinaysa ma jirto luqa carabiya lagu wada hadlaya xagga midibtuu eegi camalkiisii buu arki xagga bidixduu eegi camalkiisii buu arki hortiisuu eegi naartii buu arki fattaqu nnaara walow bishaqi tamra buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam war naartaa gaashaan ka samaysta buu nebigu yidhi gaashaan ka yeesha timir jeexeedoo sadaqadaad u bixisaan kolay noqotana walow bishaqi tamra faman lam yajid fabikalimatin طayiba buu nebigu yidhi timir jeex timira ninkaanan helin buu nebigu leeyahay hadalka wanaagsan ha ku hadlo kelmad wanaagsan ku hadlo subxaan allah waa kelmad wanaagsan alxamdu lilah waa kelmad wanaagsan amri bilmacruuf waa kelmad wanaagsan dikrigu waa kelmad wanaagsan istikfaartu waa kelmad wanaagsan laa ilaaha illa allah waa kelmad wanaagsan walaalkaaga musligood khayrka aad u sheegtaa waa kelmad wanaagsan munkarkood ummadda ka reebtaana waa kelmad wanaagsan kalimatu طayibatu sadaqa buu nebigu عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين آياتري فرق النبي يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالك قيامها ذاتك والله سوى حشرين دونا أيكو عقاقا أو بلا درأة أو كبلاءانا أو مركز النبي عليه الصلاة والسلام أيكو عقاقا كبموتان درنا موتان وفوا البباردي سيبا كنت الله وصدي لقد ليويا مركز عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رقية دمر مال الناس ما ليستحسعون يا هوا ليستحسعون يا قفك كلمونا إيجين مركز النبي يا عائشة قفك عكس عدم مال الناس من نبا ما قبض با ما نقبا ما بإيجي يا أبو رسول كل هم بقى مجربوا لي هورتي سواحة على النار تي جهنم قفك عطاء السلمي رحمه الله نكال أورنجري وحوها نن مروق بدن بوها مروق بدن سلف الصالح صدن سنبا ليدي نكاس دولك مويان عركا ما ايغين markaas lagu yiri murugtan badan waa maxay baa lagu yiri ma dadkan waxay ogaan baad adigu ogaatay baa laga yiri dadka aniga waxba igama galine taydan anigu aan ka hadlaya waxaan inii sheegayaa al mawtu fi unuqi geeridii baa qoorta ii sudan wal qabru bayti halka la dhigayana waa qabriga weeyaan wal qiyaamatu mawqifi meesha la joojinayna waa banka qiyaamo weeyaan wa ala siraati tariiqi wadada la marin doonana waa jidka siraad weeyaan wa rabbi la adri maada yaf'alu bi rabbigay wuxuu igu sameyn doonana kama warqabi buu anigu inta soo marxala ninka ay sugayso isagu hadoo qosle buu yiri anu taydaan ka warramaya buu yiri inta noolahay oo hinba nolosheeda ku dhamaysan buu yiri maanta waa adduunyo baritoole waa aakhiro weeyaan camalkaagaad la dhaadhacaysaa maxaad wadataa maxaan wataa anigu maanta almu'miniin Aisha radiyallahu anha shiddada qiyaamada markuu nabigeenu ka warramay calayhi salaatu wassalaam ayay tidhi yaa rasuulallah maalinka sara jooga ayaa u adkaysan karaya bay ku tidhi man yaqwa ayaa karaya bay ku tidhi 50 sannadood markaa buu nabigu yidhi Aisha qofka muuminka iimaanka leh ee adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay waa loo fudaydin salaada faradka inta tukataan in laag baabanka qiyaamo looga dhigi buu yiri intaan tukanay salaada maghrib 3 daqiiqo 12 daqiiqo 13 daqiiqo muuminka iimaanka leh ee adduunyada intuu jooga ka sahay qaatay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa wax sii dhigtay ee aakhirada ku sii xisaabtamay ee talaabadu qaadayaba eega aakhiradiisa hadalku intuu ka soo bixin qofka muuminka aakhiradu eega dhaqaalihiisa intuunan bixin aakhiradu eega meeshuu marayo aakhiradu eegaya meesha aan u socda ma meel aakhiradeeda iga dhaawacaysaba mise waa meel aakhiradeeda waxay taraysa hadalka iga soo baxaya ma hadal aakhiradeeda dhaawacayaba oo dib ii geysanaya hadhow toole mise waa hadal aakhiradeeda aan ku badbaadayo dhaqaalahan bixinayo ma dhaqaala aakhiradeeda ikabayaba oo aakhira ku badbaadayaba oo ma meel fiican buu igu dhacaya mise aakhiradeedii buu dhaqaalahaas iga bixinaya oo ka qabsadaa inta goor tahay muuminku uu xisaabtamaya muumminka adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay ku soo caabuday
salaadaa yare faradka inta uu tukanayay in la eg baa banka qiyaama looga dhigayaa. dadkii ilaahay yaqaanay daraariya habeen aakhirada hortaalla iyaka aakhiradu qofka hadday hortaalla maxay aakhiradu kugu saamaynaysaa noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaanaa waxaad doonta ku hadli kari maysid waxaad doonta eegi kari maysid waxaad doonta cuni kari maysid sidaad doonta u noolaan kari maysid waayo dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo dareenkaasaa xumaanta oo dhan kaa joojinaya wanaag oo dhan kuu diraaya. dareenkaasaa qofka qabanaya qofku inuu macsiyadda waxa kaa qabanaya waa dareenkaasi waa iimaan weeyaan iimaan ilaahay rumee aakhirana rumee ilaahay rumee aakhirana rumee waa labada nebiyadu dadkay ugu yeedhayeen nebi kastoo adduunka la keenay ummadda ilaahay xaggiisuu ugu yeedhay aakhiradana xaggeegu ugu yeedhay waxa ilaahay kaaga raalli noqona waa iimaan iyo camal saalix waxa aakhiradaadu ku badbaadaysana waa iimaan iyo camal saalix.